wafdigan ka socday dhinaca jamhuuriyadda Somaliland ayaa waxay ku sugnaayeen caasimadda deegaanka Soomaalida ka hor intaana u qaabilin madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida. Madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar ayaa wafdigan ku qaabilay xafiiskiisa, sidoo kalena agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo horumarinta miyiga ee jamhuuriyadda Somaliland Cabdinaasir Axmed ayaa madaxweynaha uga waramay booqashadii ay wafdigan iyo kulanadii ay la qaateen mas'uuliyiinta deegaanka Soomaalida. madaxweyne ku xigeen sida warbixinta leedinku siiyay waxaan ku nimay halkan inaanu ka qayb galno shir aynu kaga wada hadlaynay sidii aynu isaga kaashan lahayn xuduudaha jamhuuriyadda Somaliland iyo dowladda deegaanka Soomaalida arrimaha sharci darrada ee ka dhaca ay ugu horeyso arrimaha ka ganacsiga ugaarsiga iyo duurjoogta sharci darrada ee xuduudaha la isaga talaabiyo. runtii shir wanaagsan oo aad afkaar fara badan la isku wadaarsaday ayuu ahaa. waxaan rajaynaynaa mustaqbalka dhow inaynu iskaashi dhow oo walaaltinimo oo jaarnimo aynu yeelan doono. ugaadho runtii waxa weeyaan waa khayraadkii dalkeena iyo deegaankeena, khaasatan xayawaanka leedahay haramcadka oo aad iyo aad focuska loo saarayay ama xoogga loo saarayay waxa weeyaan xayawaanaadka dunida loo aqoonsaday inuu dabar go'ayo. sidii aynu isaga kaashan lahayn shabakadaha iyo networkska isku xiran ma aha kaliya dowladda deegaanka Soomaalida iyo Somaliland oo kaliya, ilaa Djibouti ilaa Kenya xayawaan laga soo tahriibiyay ayaanu qabanay runtii. marka sidii aynu isaga kaashan lahayn regionally joogta ah oo dhow oo walaaltinimo yeelano si aynu uga hortagno waxyaabo kasto dalkiina Ethiopia khaasatan deegaanka Soomaalida dhibaato u geysanaya iyo wax kasto anaga dhibaato nooga geysanayo aynu uga wada shaqeyn lahayn ayaa runtii ay faa'iido u ahayd. barsaabada iyo qoliyaha amniga ee la socday xalatay iyagana waxay fursad u yeesheen inay barsaabadii kala isbartaan ciidankii amniga inay xiriir joogto oo dhow ay yeeshaan bay runtii iyagana halka fursadaas iyadana ku jirtay. marka aad iyo aad baan madaxweyne idinku mahadnaqaynaa sida walaaltinimada leh aad noo soo dhaweyseen quruxda badnayd. dhinaca kalena wasiirka deegaanka kaymaha iyo isbeddelka cimilada ee dowladda deegaanka Soomaalida Xasan Faarax ayaa faahfaahin ka bixiyay kulankan labada dhinac. guud ahaan maanta waxaynu la kulannay madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida, waftigii heer deegaanka socday iyo waftigii ka socday Somaliland iyo dowladda federaalka intuba. waxaa kaloo sidoo kale aan la kulannay hay'ado donor oo iyagu aynu hawshan shaqooyin fara badan nagala qabtay oo ay la mid tahay CCF, UNODC, IFAO, UK Environment Wildlife Trade Fund iyo hay'ado kale oo iyaguna ilaa 6 hay'ado isku gaaraya oo ayna halkan ku martiqaadnay isla markaana miisaaniyadda ku bixisay shirarkan iyo hawshan iyaguna naga caawinayay. dhammaanteen waxaynu la kulannay madaxweynuhu ayaa inagu martiqaaday halka guud ahaanna waxayna tusaysaa taaka go'aanshaha xukuumadda maanta ee laga bilaabo madaxweynuhu in bulshada dhibaatooyinka haysta si siman loo wada arko, xaaladaha la ilaaway laga tagayna si siman looga wada qabto. aad baan runtii aan ugu mahadcelinaynaa dhiirigelinta weyn ee dhammaan waaxahan kala duwan shaqadan qabanayay ee labadan ma garanaysaa dariska ah iyo feer federaal iyo hay'aduhuba ay ka heleen runtii madaxweynuhu kulankiisu. Ali Ayaanle, Hong Cable TV, Jigjiga.